dadka waxyaabahan u sheegayna waxaa ka mid ah annagu shacab baan nahay siyaasadaha dowladaha iyo maxkamadaha laysla tegay iyo safaarada la kala qaatay iyo kuwa la isu soo celiyey iyo waa hawlahaasi waa hawlo dowladeed anagu shacabkii baan nahay bulshadii meesha deganaa marka inayna waxyaabahaasi horta saamayn aysan nagu yeelanin baan rajaynaynaa dhinaca dowladda Kenya waad ogtahay bismillah magacaygu waa Cumar Ibrahim Hussein waxaan ahay xogeyaha guud ee guddiga ganacsada Islii Business District Association marka la soo gaabiyo EBDA loo yaqaan kana mid ah guddiga amnigana waa ka mid ahay arrinta tan kale digniinta biri waxa la rajaynayaa in arrin go'aankii maxkamadda caalamiga ICJ inay go'aan ka gaarto murankii u dhaxeeyay Soomaaliya Kenya ee badda annaga ka guddi ahaan waxaan leenahay Soomaalida ganacsatada oo Kenyaanka ah in go'aankii wixii ay Kenya mowqifkeeda ayaan taageersanay waxaan marka dadka annaga Soomaalida oo ganacsatada ugu digaynaa inay falcelin ka sameeyaan go'aan kasto ay maxkamad soo saarto annaga aan amni iyo shaqada annaga caadi u socota ayaan dadka kula aan u sheegaynaa sababtoo ah qofkii wax maarta amniga qasaay mise dib u keenay sameeyana in waxaan la hadalnay waxda ammaanka ciidamada booliska inay maarta shaqadooda qabsadaan ay xaafadana ay imaan doonaan qofkii amni darro lagu arkana sharciga la marin doono wuxuu sharciga uu waafajiyo maarta wixii sharciga uu qabo waxa kale aan leenahay Kenya iyo Soomaaliya murankoodii waa wax laba wadan u dhaxeeya annaga ka ganacsi ahaan iyo wadaniinta wadankan u dhashay inaan murankaas iyo waxaas aan faraha la galno ama aan taageerno ama waxaas aan sameeyno oo dada waxa la dhigi karaa dad badan oo shaqo la'aan ah dhalinyaro social media ka shaqeyso dad oo shaqo la'aan ah waxa laga yaabaa inay rabshad sameeyaan anaga ka ganacsi ahaan waxba nooma anfacis in rabshad iyo maarta mudaaharaad la sameeyo aad bay noo saameynaysaa inaan shaqada anaga caadi iskaga wadana ayaan rabnaa runtii aad iyo aad baa loogu dhaqan yahay hadday tahay dadkii Soomaaliyeed ee asal ahaan reer Kenya ahaa iyo hadday tahay kuwii gadaal ka yimid waa ku dhaqan yihiin way ku shaqaystaan waxbay ku bartaan way ku cibaadaystaan si sharaf iyo cizi ayay ugu nool yihiin ma doonayna marka taa inay marka nimanka madaxda ah oo xildhibaanada faraha badan ee maanta isu yimid waxyaabaha la isla soo qaaday waxaa ka mid ah inaan marnaba lagu xadgudbin Soomaalida maadaama ay maaragtay muwaadiniin yihiin oo lagu xadgudbi karin inaguna aan iska ilaalino wax kasta oo keeni kara in lagu soo xadgudbo inaan anaguna dhinacnaga ka ilaalino dowladuna marka waxay ballan qaaday inay ummadda iyo hantidooda iyo sharaftooda inay difaacayso ayay ballan qaaday marka waxaan isleenahay insha Allah haddii aysan inaga xaggeena dhibaata ka imanin oo xadgudub dhalinyarada iyo Soomaalida waa dad iska xamaasad badan ayna ku kicin wax dhiba ma rajaynayno inay yimaadaan laakiin haddii ay soo baxaan oo ama ay damaashaad u soo baxaan dabadeedna kuwa kale oo iyaga ka soo horjeeda ay soo baxaan oo faraha la isula tago inay dhib weyn keeni karto ayaa suurtagal marka in maaragtay arrinta waa laga digtoon yahay insha Allah ta'ala bulshadana waana wacyi gelinaynaa hawlahani waa hawlo dowladeed waa go'aamo aanan waxbana ku dari karin waxna ka dhibi karin saameyn toosana aan ku lahayn nolosheena marka inay dadku sidaa u fahmaan baan doonaynaa runtii go'aankaasi saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Kenya sidaad ogtihiin Kenya waxaa ku nool bulsho aad u fara badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo isugu jira dadkii Kenyaanka ahaa ee Soomaalida ahaa ee gobollada NFD ama North Easternka deganaa oo ilaa 3-4 county ka koobnaa dad guud ahaan u dhaafaya 5 milyan kor weeye waxaa intaas sii dheer inay qaxooti badan oo Soomaaliyeed ay degan yihiin oo 100 kun ah waxaa intaas sii dheer dad badan oo Soomaaliyeed oo muddadii dagaalka sokeeyay uu ka qarxay Soomaaliya u soo guuray oo degay oo ku carruur dhalay oo ku shaqaysto iyaguna maxaan ku idhaahdaa aad iyo aad u tiro badan inay joogaan marka waa meel runtii Soomaalidu ay degan tahay kuma dhashay xagga dhaqaalaha marka laga hadlana waxaan aaminsanahay inay tahay meelaha dhaqaalaha ugu faraha badan ee Soomaalidu uu yaalo waad ogtihiin Dubai baa laga soo noqday dibadihii baa laga soo noqday xataa Turki baa laga soo noqday marka hantidii Soomaaliyeed oo dhan Kenya la isugu keenay waliba khaasatan magaalada Nairobi caruurihii iyo reerihii iyo masaajidii iyo maraakistii iyo
maxaanku idhaahdaa ganacsigii iyo iskuulladii jaamacadihii wixii oo dhan baa meesha ku yaalla marka sidaa awgeed waxa weeye arrintan iyada ah saameyn weyn bay ku yeelanaysaa in wax la iska dhaho laga tashado qaabkii loo wajihi lahaana muhiim bay noqotay saa darteed baa waxaa maanta kulan isugu yimid ganacsatada iyo culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo soomaalida ee dalka Kenya xildhibaanada iyo maaragtay aqoon-yahano badan oo laga hadlay sidii maaragtay barnaamijkan loo wajihi lahaa maxaa naga aadan maxaan samayn karnaa baa la isugu yimid horta marka hore dee go'aanka maxkamadda annagu tala kuma lihin awoodna kuma lihin sida muuqatana waxaad moodaa inay u badan tahay in Soomaaliya loo xukumo laakiin waxaa soo baxay intii arrimaha la iska wareysanayay inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo fara badan saad ogtiin dhalinyaro aad u fara badan oo ayaa ku nool magaalada Nairobi khaasatan dhinaca Islii ayaa waxaa soo baxay warar tilmaamaya inay jiraan laba qaybood oo dhalinyarada Soomaaliyeed qolo aad u taageersan in loo xukumo dowladda Soomaaliya usuna diyaarinaya inay dabaaldegiyo sameeyaan iyo qolo kuwa ka soo horjeeda oo rabay ama raba in loo xukumo Kenya labadubana waa Soomaali waxaa dhici karta laba wiil oo Soomaali ah midba inuu aragti kala ka duwan uu qabo marka waxaa dhici karta inay buuq iyo banaanbaxyo iyo damaashaad dhinac ah iyo dhinac ka soo horjeeda inay dhici karto berrito inay dhacdo ayaa wararkaasa la soo xaqiijiyey kadibna waxaan istusnay in arrintaas maaragtay laga hortago oo looga digo dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan maaragtay arrimahaas oo kale ku kicin oo dhib weyn bay arrintaas u keeni kartaa ummadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya degan guud ahaan si gaarana xaafadda Islii sababtoo ah waxaa dhacaysa haddii dhalinyaradaasi ay isku dhex caydhsadaan ama ay u soo baxaan banaanbax u soo baxaan ama taageero ha noqdo ama kasoo horjeed ha noqdee oo suuqii iyo magaaladii iyo xaafaddii ay isugu soo baxaan waxaa imaanaysa arrimo dhowra kow waxaa imaan karta in xaafadaha dadka danyarta ah ee isku raranta degan xaafadaha isku raranta degan inay maaragtay weerar ku soo qaadaan oo iyagoo boqolaal kunay xaafad hadda maalan waxaa jirta madaara la yidhaahdo oo Islii kaabiga u saaran inay soo weeraraan oo ay hantidii boobaan oo ay dumarkii farax xumeeyaan oo ay dadkii laayaan oo guryihii gubaan oo ay fursadda ka faa'iideystaan maaragtay violencega iyo buuqa Soomaalida dhexdeeda ka dhacaya inay ka faa'iideystaan baa suurtagala haddana waxaa imaanaysa inay haddana ciidamadii iyo amnigii ay soo galaan baa imaanaysa si ay maaragtay u dejiyaan hawsha iyaga laftigooda xataa aamin lagama aha siday u dhaqmi doonaan marka go'aanka soo baxay waxa weeye in aan uga digno dhalinyarada Soomaaliyeed aragtiday doonayba ha xambaarsanaadaane inayna wax isu soo baxa aysan berrito samaynin haba yaraatee maxaanku idhaahdaa inaan arrintaa uga digno waana laga hadlay masaajidana laga hadlo goobaha dadka lagala hadlay ama social mediaha ama tviyadana lagala hadlo looga digo si loo badbaadiyo shacbiga Soomaaliyeed ee maaragtay meesha ku dhaqan xaafadan waa xaafad dadku aad ugu badan yihiin ilaa 500 kun oo qof baa degan hantidii oo dhan baa taala caruurihii baa degan wax walba marka meel ma aha xamili karta inuu buuq ka furmo oo mataqaana awalba ula booca lagu tukubayay marka waxaan rabnaa inayna arrintaas in aad iyo aad looga taxadaro marka go'aanka ugu weyn ee soo baxay go'aankaasuu noqday waka